Sheekh Faarax Cali oo ka mid ah dadka muxsiniinta ee ka soo jeeda gobolka Gabiley khaasatan degmo ganacsiyeedka Wajaale isla markaasina inta badan ka damqada dadka jilicsan leh ayaa maanta waxa uu in ka badan 125 qoys oo raashin u gaarsiiyay dadka ku dhaqan deegaanada hoos yimaada gobolka Gabiley khaasatan deegaanada Ilka Weyne Geed Hara iyo deegaano kale waxaana uu warheelkaasi ka hadlay isla markaasina faahfaahiyay deeqda raashinka ee maanta uu soo gaarsiiyay dadka danyarta ku dhaqan deegaanadaasi Sheekh Faarax Cali oo ka mid ah muxsin inta badan oo ololeeya isla markaasina ka damqada dadka jilicsan leh isla markaasina uu soo wakiishay Sheekh Caana oo ku nool wadankaasi Kuwait Faarax Cali ayaa isagu ka hadlay deeqda raashinka ee maanta uu soo gaarsiiyay ay tamyada kala duwan ay isku jiraan waxa uu yiri الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم maanta annagoo joogna magaalada tuulada Geed Hara oo ka tirsan gobolka Gabiley waxaan deeq raashin oo dhan 140 qoys gaarsiinay ilaahay mahad ka gaadho oo uu ii soo wakiishay walaalkay Abu Falaax Albasmaan إلهي أقول بشاريو مالكيس إيه أولادي سنة الله بركيه وأنا الحمد لله الرحمن الرحيم أنت أصو فاميلي أما أنت أصو رير كويس فوحان قارسيني راشنكي تولدا وأنا أفر تولو هاي كميتا جيد هرا كلابيد الكوينة إيه عين قلا ولله الحمد إلهي ما هذا كقادو سفي عم بينه وقول عليه الراشيكي وقايبني أفرتي قدومينا الراشيكي نقله وريجين أنتي صوب حسطي أنا جو مقرر يساي أها وكيلك نكاس محسن كا مرة والبابا سومالي لان كعن وين كله عيلك قدام بينه قضي تلاجة ده هميت كنوسو ديبي أدبان وما هذينا إلهي جزاه الله خير وأنا إذن سلام يا ومد الصومالي لان استيجوان بشر بركيسان وحاند الله هاي مبروك على رمضان الشهر المبارك سلام عليكم يمدون يدهم العون إلى أخوانهم المضررين الصومالي لاند اليوم ثالث رمضان توزيع الإفطار وهذا التموين 150 أسرة 150 أسرة هذه السكر على 150 الرز يعني 5 أصناف الطحين والرز والمعكرونة والسكر والرز خلف الكاميرا والزيت والحمد لله رب العالمين. والحين نبدأ التوزيع للفقراء بسبب الأمطار حطيناه هنا اللي صارت بالليل ولله الحمد والمنة والحين تم بعد شوية بإذن الله تعالى يتم التوزيع المواد بإذن الله ونشكركم جزاكم الله خير على ما قدمتوا لإخوانكم الصومالي لاند خاصة المنطقة منطقة الجيد هرا القرى كان دائما يزور أبو فلاح الله يجزيه خير ويمد العون دائما وجزاه الله ألف خير. geesta kale qaar ka mid ah shacabka maanta la gaarsiiyay raashinka isla markaasina ka faa'iideystay ayaa iyagu waxay u mahad celiyeen sheekha caanka ee ku nool wadankaasi Kuwait ee soo diray deeqda iyo Sheekh Faarax Cali oo isagu ah sheekhi loo soo wakiishay waxaana Ilaahay uga baryeen inuu miisaanka xasanaadka ugu daro waxana yiraahdeen mahadna alxamdulillah rabbil alamin marka ugu horeysay Ilaahay baa mahad mar labaad waxaan ugu mahadnaqanaa Sheekh Falaax iyo Sheekh Faarax oo noo keenay hanti raashin oo masaakiinta la gaarsiinaya oo dhan 4 beelood waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqanaa sheekha iyo xaji salaax aad iyo aad baan ugu mahadnaqanaa. bismillaahir rahmaanir rahiim. assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.
waxa weeyaan halkan maxaariifta noo keentay raashinkan falaax iyo faarax iyo bulshada qaar maanta isku timid reer Geedhara maanta intaasba waxa halkan u taagan tahay waa hantida ay noo keeneen walaalahay way ku mahadsan yihiin boqolkiiba boqol ilaahay ka jira siiyo wayna ku mahadsan yihiin falaax iyo cidii ugu soo dhiibay waxa weeye dadka masaakiinta maanta halka joogtaana way ku mahadnaqaysaa annagoo noo keenay waxa leenahay waa ku mahadsannahay waa ku mahadsantihiin uguna boqolkiiba ilaahay rabbil caalamiin ee sheekh faarax noo keenay ee carabkaasi noo soo aw falaax la soo gaarsiiyay ee sheekh faarax la soo gaarsiiyay baan ugu mahadnaqaynaa alxamdulillaah rabbil caalamiin boqolkiiba 90 waanu salaamaynaa waxaan salaamaynaa sheekh faarax iyo abu falaax oo nooga soo qaaday raashinka ila noogu soo dhiibay carabta mahadiha ka gaadho alxamdulillaah rabbil caalamiin waanu mahad celinaynaa iyagoo oo mahadsan dadka yaga ay wax u keeneen waanu ugu mahad celinaynaa ilaahay ha ka jisaa isiiyo dadka la soo baxay bisha barakaysan ee khayr kale la soo baxay abu falaax allah ka baraka siiyo iyo ka noo keenay ee sheekh faaraxba ka u soo dhiibay ka noo keenay mahad bacdan ugu celinaynaa alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahay ha ka jisaa mariyo annaguna waanu ducaynaynaa waanu liban laabaynaa insha Allah kariim dadka baahan ay u keeneen ayaan ugu mahad celinaynaa alxamdulillaah rabbil caalamiin sheekh faarax ina darkaya marka hore waxaan raacinaynaa kale sheekh cali falaax ee noo soo diray raashinka raashinka noo soo diray aad baan ugu guddoon walaal aad baan kaaga salaanay anaguna kaaga qaadanay walaal guddoon fiican baan kaaga qaadanay waxa weeyaan halkan wax maanta lagu siiyay sadaqada loo soo magaranaysaa sheekh faarax noo keenay ilaahay cidii uu noogu soo dhiibay nooga soo qaaday waan ka guddoonay taasina anu waxa ay dawaan qaybsanay ee masaakiinta saasaan u gaarsiinaa deeqda halka naloogu keenay ee sheekh faarax iyo falaax maada ka gaadho mahad baan uga naqaynaa waan dharagnay meel beelihii oo dhan way gaadhay beelihii oo wada qaybiyeen si fiican ba u siiyeen waa la gaarsiiyey mahad adiga gaadho ilaahayna adiga jisaay siiyo saasa idigu allah baraka allah idii geliyo maalkiyo wax walba allah idii barakeeyo heesta kale sheekh faarax cali ayaa maanta waxa uu in ka badan 510 qoys u gaarsiiyey deeq lacageed kuwaasi oo ah dad jilicsan iyo dad xanuunsanayaba kuwaasi oo ku nool degmada Togwajaale sanad kastaba markay gaadho bisha barakaysan ee Ramadaan waxa deeq noocan oo kala soo gaarsiiyay dadka jilicsan ee ku nool degmada Togwajaale sheekh faarax cali isagoo inta badan ka damqada dadka jilicsan leh هذه الزكاة انت شايف الناس كثر يعني ما نقدر نحسب العدد هايل جدا 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 يعني أكثر من مو 250 أكثر من 400 يعني الله يعلم يعني كان مفروض نعطيهم 330 دولار لكن قدر له ما شاء فعل 10 20 اللي قدرنا لأنه هناك كل واحد جلبها واحد ثاني ولله الحمد والمنة وهذه زكاتك الله يجزيك خير ويبارك مالك وعيالك وجزاكم الله خير جميعا أنت وأخوانك وأخوالك وأصحابك كلهم جزاكم الله خير ووزعناها ولله الحمد وما زال التوزيع ماشي بإذن الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدر عبد الله